siyaad dhowr xabo waa ka xusuustaa horta nin xusuusiyaad leh buu ahaa aada iyo aada u xusuus badan mid khibrad badan oo askarinimo boliis milatariga soomaaliyeedba 60 baa la sameeyey maxamed siyaad barre ciidankii talyaaniga ee Itoobiya ku duulay yuu ahaa wuba ku dhaawacmay baa laygu yidhi aaggaa herer iyo qolyo qaraabo ahoo reer Sheekh Nuur maraankii lagaga yimid dhulka yaaba muddo meesha ku hayay nin markaa aad u xusuus badan buu ahaa midda kale in aad iyo aad shaqada ugu dhigin buu ahaa waxaan xusuustaa mararka qaarkood shirar iyo hawl socda shirkii November 1975 dhacay ee guriga ummadda ka dhacay waxaan ogaa anigu jawharkan markaa ka shaqaynayay waan imi magaaladan deganaa howlahan ka rabay waxaan ogaa 2 habeen iyo 3 maalmood oo isku xigta inuusan daqiiqad saaxan ninkaas inaan daqiiqad saaxan wuxuu ahaa nin hawsha uu hayo nin mudran ma ahayn mentalitygiisa iyo si uu fikirayo laakiin nin capacity-ga awoodda uu u leeyahay inuu shaqeeyo waxyaab loo ahaa oo anagu hore u arag oo nin maalin 2 maalmood laga yaabo kursiga inuu ku fadhiyo waxyaalaha yaa daliinba haddaad doonayso wax laala wax intelligence warka islaan la furay joogtaa ay soo dirto isaga akhriyaya cid waxa uu kala hubto u kala hada ma lahayn laakiin de waxa uu saacadahan yaa kala u shaqeynayo yaa waxa ay at least wadanka siduu ula socdo dadkana ula socdo nin dadka sida uu u garto ay ku wada shaqeeyaan nin waqtigiisa qaatuu ahaa nin la shaqeeya haddii uu qoonsado nin markiiba hawkiisa oran jiray ma ahayn waa la sugi jiray allaha u naxariisto maxaa siyaad bare nin waxbarasho formal education badan ahaa ma ahayn ninuu ciidamada galay ciidanka talyaaniga galay kabacdina ingiriiskii ku wareegay rag uun markaa isaga iyo xuseen kulmiye iyo maxamed abshirku waa ka yaraa iyaga laakiin rag training school police ahoo ilaa hadda ku yaala Kenya raggii galay buu ahaa markii dambana Italy tegin short training yaa loo diray nin military training galay hanti aad ma ahayn raggii ugu horeeyay barnaamij meeshii loogu talagalay 2-3 sano 9 bilood tegay ugu horeeyay waxay maxamed cali samatari iyo laayis maxmedi iyo aydiid iyo xuseen kulmiye kuwaas ahaayeen saraakiishii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee program short ka doortay saraakiishii Soomaalida ugu horeysay ee military academy talyaaniga moodana galay waxayna Cabdan Muuse iyo ninka Maxamuud Geele la yiraahdo iyo Muuse Xasan marka maxaa siyaad bare trainingnada ma lahayn laakiin markii dambe waana runa aqoontay nimanka theoretical-ka oo calisamadka oo kala lahaa iyo Cabdullaahi Yuusufka iyo ma lahayn laakiin ninkan awoodda uu raggiisa ku fasho ee kula shaqeeyo ee ku aamino inay ku aaminaan waa lahaa rag maamul ninkaas waa lahaa waa bartay ilaa 66 sanad baan la shaqeynayay ninkaas oo almost maalin walba aan arki jiray oo shirku socon jiray run ahaantii ay noqoto aqoon police iyo aqoon reer magaalnimo waxaan sheegay uga jeedaa taariikhda adduunka iyo muxuu ahaa dhaqanada kala gedisan iyo inayna abshirmin yaab loo ahaa isaga ragga kale aada uga horeeya cabdirasaaq xaaji xuseen iyo inaashir dadka aada u faafay labaduba ahaayeen cabdirasaaqna ninkan nin policeman u ahaa
nin bulshada aan aada ugu jirin buu ahaa, dhalinyaro u ahaa, xaas ma lahayn. mar danbuu guurku siduu anba iiga raagay bulshadana uga raagay. maxamed siyaad barre laakiin waxaan marnaba ilaaweynin waxaan hadda sheegaya xusuustiisa. ninkaasu qofku maalin arkayaa waa laga yaabaa 20 sano ka bacdi hadduu arko waxbaad u sheegaysaa, arrin baad kala hadlaysaa, notes ma qaadanayo, waraaqaad u qortay intuu akriyaba waa iska waxaad u sheegtay. waxaan kaloo kala yaabi jiray ninkaa haddaad u timaado oo xitaa adoo cadhaysan u timaado oo waxaan madaxweyne lagula hadleen aad kula hadashto oo aad keligaa tahay weligaa kuma qaban jiro. laakiin haddii qof ama 2 qof oo kale idinla joogaan wala hoogiyo baa jiray. maxaa siyaad barre markaa nin rag maamul yaqaana, sabra, oo haddii xitaa uu dhibaata markaa hayso nin aada u safro oo kula suga yuu ahaa. waxaa hadda soomaalidu hadday wuxuu ku faanayso kartana ninkaasu ninkii waktigiisii la sameeyey buu ahaa. ninkaa annaku ways qabanay, aniga si gaara waa ila xidhiidhi jiray. marmarka qaarkood meelaha aan joogo yuu iman jiray, waktuu isiin jiray, isagaa isoo doontay. haddana markii dambe waxaanu isku qabanayna waxay ahayd wax danta uun saanu arkayey uu isaguna weliba dad kale uu ka agdhowaa ay nagaga xoog bateen. midda kale ee aan hubaa maxaa siyaad barre tuug ma ahayn, musuqmaasuq ma ahayn. maxaa siyaad barre intuu dalka joogay mar aan shakiyo waa jirta warshad yuuriyada bahashan lagu sameeyo fertilizer waa jirta. warshadihii sonkorta waxaan ilaahay hortii ka sheegayaa inuusan kuumiga taana ka qaadan. ninuu naasnuujinayo markaa waa jira oo isla dhintay oo bashiir yarow la oran jiray iyo cabdillaahi cumar. aniga xitaa lafteyda waa laygu daraa, laakiin cid dawlad soomaali ah aniga iyo isaga iyo cid kalena warshadaas sonkorta waxaan ka hadlaynaa lacag 300-400 milyan oo dollara waa mashruucii ugu weynaa. hadday cidid mashruuca lacag ka qaadatay waxay ahaayeen ninkaa la yidhaahdo bashiir yarow, ninkii la oran jiray cabdillaahi cumar, nin macallin ii ahaan jiro cabdillaahi ka wakiil ahaa oo maxamed bidmax la oran jiray. markaas niman baa cusray ahaayeen. maxamed siyaad barrena wuu ku naasnuujinayay. wuxuu maxaa siyaad barre u haystay maraykanka wixiisa waa qashika iyo buldowsarnimo, laakiin cidda intelligence iyo adduunka influencekay ku leeyihiin uu aada u xoog badan yahay ingiriisku ahaa. mar walbana wuxuu raadinayay dad ingiriis ku xidhan oo at least channel u mari kara. cabdillaahi cumar buu u arkay, maxamed shaana badnaax iyo bashiir yarowna asxaab bay ahaayeen. hadday cidi wax dilaashay oo mashruucaa dilaashay qof dawlad soomaaliya u shaqeeya ma dilaalin. maxamed siyaadna ma dilaalin, anna ma dilaalin, mid aniga iga hooseeyana ma dilaalin. marka qura aanu maxaa siyaad ka shakiyey warshadaas bacrinta maxay ahayd fertilizer islaan afdheer oo talyaaniga ugoona odhan jiray yaa wakiilla ka ahayd. islaantu iyadaa magaalada xamar kula wareegi jirtay, lacagaan bixinay. ciday tilmaami jirtayna iyadu wuxuu ahaa nin islaan caanagii la oran jiray oo markay timaado wadwadi jir. maxamed siyaad barre arrintaa iyo arrin shidaalo oo ninkaa nin cabdi xoosh la yidhaaho oo waxa ugu horreeyaan ku kala boodnay ah. cabdi xooshna umalayna maayo inuu lacag ka qaadanayo, isaga unbuu rabay inuu naas muujiyo. ilaahay aniga jiilaayni aanu ku risaan garaynayba inaanu wasiiro meesha ka ahano. anigu ninkaa arrintaana waa ku ogaa. dee markuu meesha dhintayna wiiluu dhalay oo isaga udhadiisu aan waxba maslax oo niman isku xilxidnaayeen oo ciidamada iyo baanusharaha waa jireen. laakiin reerkiisii waa laga yaabaa guri iyo wax inay meelaha dadku ka gateen. laakiin ninkaa madaxweynaha ah
markuu wadanka ka tegey ee Nigeria tegey xalal lasoo kuwa iyo taano nigaas ma haysan mana shaqaysanayno income uu reerkiisa ugu shaqaynaya ama isoo ku shaqaysanayana uma soo joogin rafaad buu ku dhintay kuwa Nigeria marbayba guriga u dhacana xogaagii shaagaka ka xadeen in Suudaan iyo journalist article dheer ku qoray oo Soomaaliya iman jiray oo yiri madaxweynihii Soomaalida halkaas uu ku rafaadsan yahay wala dhowr shaarada xoogaaga haystay waa laba saddex sano ka bacd markuu meesha tegey kuwiina kuwa baaqta guriga u soo dhacay markaas yaa dareenay sifooyin kale buu ahaa nin laakiin aarsada yuu ahaa nin aarsada oo dadkan hawsha adag ee aarsada ama qof ha noqoto ama qabiil ha noqoto nin aarsada waa maxay oo adag aniga waxay ku waxaan adiga sheegaysa in adag oo aarsada oo suga ayuu ahaa waqtigiisa suga ragga uu magacaabanayana nin kulli meelo badan ka fiirfiiriya uu ahaa nin kulli in leh waqtiyadii dambe waa u badnaa nin uu og yahay inuu ku toosar garayn karo intiisa wala macallin weyn u ku ahaa